Doomiyaha ururka haweenweynaha Now ee gobolka Togdheer ayaa waxay maanta xilkii iyo xubinnimadii ay u haysay ururka Now iyo xubinnimadii xisbiga Kulmiye ayaa shaacisay inay iska casishay. Deeqa weyn ayaa waxay ku dhawaaqday garab la magac baxay. Asalka Kulmiye waxay baaq u dirtay taageerayaasha waxaana hadalladeedii kamid ahaa anigoo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka Togdheer ee ururka qaranka ee Now magacayguna yahay Deeqa Weydaar. Halkan maanta waxaan ku cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay ururka qaranka ee Now ee gobolka Togdheer ayaan iskaga casilay xilkii aan hayay waxaan halkan ka sheegayaa inaan ka bixi doono xisbiga Kulmiye muddo dhawaana hadii Ilaahay gaarsiiyo aan ka diga rogan doono halkan ka u diga rogan doono iyo xisbiga waxaan kaga baxay iyo qaranka waxaan iskaga casilay waxaan ka soo sheegi doonaa gadaal dhammaan halkan waxaan maasay jumarinayaa dhammaan taageerayaashayda ku nool daafaha dunida iyo gobolka Togdheer badan ay u badan yihiin waxaan idin leeyahay all station standby waynu diga rogonaynaa waa ina diyaar garowdaan magacayaga waxa la yiraahdaa garabka asalka Kulmiye dhammaan waana wada og yihiin waxaan u sheegay dhammaan asalka garabka Kulmiye inaanu ka bixi doono xisbiga Kulmiye meeshaan u diga rogoon Ilaahay hadii gaarsiyo jimcaha dambe xaflad aan la arag oo la maqal loo sameyn doono garabka asalka Kulmiye alxamdulillah rabbil caalamiin muddo 4 sanadood ayaan xilka hayay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa haweenkii gobolka Togdheer ururka qaranka Now ee labada jeer ii doortay ururka qaranka Now ee gobolka Togdheer ee aan dhibaatadu naga dhaxaynin ee aanu gacmahaysaysanay insha Allah bidmilaahi karim waxaan idin leeyahay idinkuna hayga hadhina ina keena ku biiriya waanu la soconaa laakiin waxay mahmaah Soomaaliyeed waxay taada bun hadii la waayo bedelkiisa la helaa haday xagga ku biiran anaguna waxaan ku biiri doonaa xisbiyada kale macaaradka ma cadhoonayo laakiin waan ku tala gashanaa in aanu isweydaarsano ayaguna ay xagga tagaan Doomiyaha ururka Now ee gobolka Togdheer Deeqa Weydaar ayaa waxay muddo gaadhay 4 sano la soo dhaafay ahayd gudoomiyaha ururka Now ee gobolka Togdheer Raxme Maxamed Cabdi STN TV Burco.